Khadija Aadan Ibrahim oo muddo dhan 9 sano la nooleed xanuunka HIV/AIDS-ka ayaa ka sheekaysay caqabado nolosheeda ay la kulantay. Khadija oo ka hadlaysay munaasabad shalay ka dhacday magaalada Garowe ee xarunta gobolka Nugaal, isla markaana lagu xuseeyay maalinta caalamiga ah ee xanuunkan HIV/AIDS-ka ee 1 December, ayaa waxa ay ka sheekaysay deegaankii ay ka timid iyo sababta ay uga soo haajirtay. Khadija waxay sheegtay in ay ku noolaan jirtay dhulka dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ee waqooyi galbeed. waxay sheegtay in odaygeedii hore oo ay u dhashay hal ilma ay kala tageen, isla markaana gabadheedii ay hadda tahay gabar qangaara oo aan weli la guursan. Khadija waxay sheegtay in ay hadda isqabaan Bashiir Cismaan Cawad oo ah taliyaha saldhigga galbeed ee magaalada Garowe oo ah sarkaal ka tirsan Puntland, haddana la nool isaguna xanuunka HIV/AIDS-ka. waxay sheegtay inay ku faraxsan tahay nolosha ay la wadaagtay Bashiir, isla markaana ay waxyaabo badan oo nolosha ah ka midoobeen. waxay sheegtay nolosheedu ay caadi tahay iyadoo fariin gaar ah u diraysa dadkan la nool xanuunka ee jooga guryaha kuwaas oo qarsanaya xanuunkan. waraysiga oo dheer ayay sidoo kale ku sheegtay Khadija Aadan caqabado badan oo ay bulshada kula kulantay muddadii uu xanuunkan hayay. waatan iyada oo sharaxaysa nolosheeda cusub. waan dhawahay alxamdulillah, harta ilaahay baa mahadlay. anu xanuunka waxa la noolay muddo 9 sano ah. xilliga laga helay qaraabadeeda qaarna way ogaayeen qaarna ma ogeyn. hal gabadhan korsan jiray, markii dambe ninkayga qabi jiray, hadduu qabay markii dambe isaga soo ogaaday xaaladiisii aan xanuunka u soo dhacay. markii dambe aanu kaliya iska noolaan jiray, gabadheedaan korsan jiray. caqabadayga la kulmay halkii aan ku noolaan jiray, deegaankan ku noolaa. marka waxaan isiri xadiiska waxaan xasuustay nabigu yiri sallallahu alayhi wasallam uu yiri meesha haday kugu adkaato waa laga haajiraa. waa iska soo haajiray Puntland ma iska soo galay gobolada waqooyi galbeed baan u dhashay. waxay ahaayeen markii aniga dadkii horta garabkayga ka dhawaa oon waayay, ana xanuunkiina la nool ee dadka iga celin lahaa. waalidiinteedii qaaran waayay, aabihii baa soo haray. aabihiina wuxuu gaaray dadkii oo dhan ii sheego. marka waxa noqday shimbir baal ka go'ay. waan iri kaliya waxaan u habran jiray gabadheeda yar. caqabada ani dhibti igu dhacday inayna ku dhicin maadaama gabar tahay oo iyada seef gareeyo oo iska sito dawadeedana qaato. waxay caqabadii waxa kamid ahaa walaashay guri in la iga kareyn waayo. guriga hadii la iga kareeyo xitaa anoon wali guriga ku guurin baa lacagtii horumarinta la soo celiyay igu tirislaantii dad baa iga imanay Jabuuti hooyo wata lacagtaadi. حتى قفك يقول له أمرك أنتوا إيه مدبي يقولوا أنتوا يدفاعي لها سوى جرو وين كتيرة بي يقولوا لي أنا وكا وحبكم ما قبل كردتك ولا هذاك وش هكى سنة يعني حافظ النمو الدجنان كرنا إنك على قري مركب أنكو أصلا أنت المخرب أنتوا كذا أنت المخرب كذا إلهي بريين أنك هاتشر ماشي وانكسر هاتشر إلهي يقوم وانكو قول استي وحي صور دوير دتك إن رب الله الحمد لله رب العالمين قول بنجاري دتك كانوا يستاجي عفمات كان حكبرتي في تسيبان كشقايا كوسالسكا سمايا تستيكا سمايا دتك كانوا يستاجي ku kasta meeshiisa aan ku ogahay inta ani awoodayda aanu cidna lacag ma siiyo, laakiin xanuunka maadaama anu gawaaya aragsana 9 sano dawada qaadanay waa soo dhaweeyaa walaalahayga. dhalinyartan waxaan ku booriyaa intayna iskuursan inay isbaaraan waliba 2 jeer oo 3 bilood u dhaxayso. hadda gabadheedii berigii maanta waa dhowr 10 jir. hadda dad baa igu dhaafay media la hor istaagtaa Khadija gabadhaada ayaa guursanaya. gabadheeda waxaan ku yiraahdaa guurka Allah oo haya, laakiin waxay fiican baan ku yiraahdaa 2 reer oo safe noqda oo waxay ugu muhiim ah 2 reer oo safe noqda walaalahaya inaan badbaadiyo oon u sheego xanuunka. dad baan ogeyn dad baan xarunta ba aqoon. xataa xaruntu waxay ku taalaa isbitaalka weyn referaalka Garowe. walaalahayna inii jooga qof dhalinyar aan ahay iga cabsoonina yimaada la isbaara xaaladina ogaada. markii aad dadka xaaladahooda ogaanaysa Khadija aad ka warqabaysid dhibaatooyinka ay dadku kaaga sheekeeyaan ay kugu dhahaan waan la kulanaa maxaa kamid ah? dhibaatooyinka dadku markii qofka xanuunka la nool caqabadaha ugu daran ay la kulmaan waa qofkii shaqo laga soo ceyriyay nololiisa asaasiga oo dhan ku waaya. in shaqo laga soo ceyriyay in ubadkiisa iskuulka laga soo saaro, in guriga lagu shiido haduu leeyahay oo la yiraahdo xaafada ka guuro, inuu basuuqiba ka adeegan kar waayo, in xataa meeshu biyaha ka cabay loo diiday. ana kamida meeshu biyaha laga cabay in la diiday hadda ka hor. alxamdulillah maanta waa fiicanahay, guri baan leeyahay. dadka kuma oranayaan guri iyo hanti baan leeyahay, waan ka maarmaya, waan u baahanahay walaalahay iyaguna way ii baahayn. laakiin waxa ku baaqaya inay walaalahay is dhowraan oo dhowrsanaado waliba jiilka cusub dadka hadda soo baxaya. Khadija marka aad shaqaynaysay sidoo kale ay ku iimaanayaan wali dadkii
inaad ka dhaadhiciso inay dawooyinka qaataan sidee bay dadku u aqbalaan markaad ka dhaadhicinayso inay dawooyinka qaataan iyo inay isbaaraanba wallaahi muhiimadda way igu farxaan dad badan bay igu farxaa qof markii ooyay counselska uu sameeyo wada sheekaysaan yeelanay dhakhaatiirtu markay qaabilaan bay ku dhaadan gabadhan waa sidaas way la nooshahay wata shaar cad bay xirantay shaqaale caafimaad weeyaan qaar baa yiraahdo waxaan rabaa sida Khadiijo kale inaan ahaado noloshiisa iska sii wataa inta badan way aaminaan noloshooda iska sii wataan shaqooyinkooda iska wataan qof kasta dhalinyarana waxaan ku booriyaa inuu dawadiisa qaato sideeda kala noqdo waayo faa'iido badan buu ka helayaa faraskii oo ka xidhmaya ilmo fayow buu dhalayaa dadkii buu ekaanayaa hawlihiisii shaqo halkii ka wadanaya hadduu wariyaha hadduu askari ahaa qofna meeshiisii yaa waxaan leeyahay walaalahayaga naga waaweyn khibrada kale naga waaweyn dadka wajihaadu noqotaan isqarinayna waxaan baa ku dirayaa afka Soomaaliga meel kasta joogaan ay soo saaraan walaalahooda si ay taargad ugu noqdaan sideedoo kala soo baxaan dadkooga ha u qareemaan meel kastana ha galaan dadkaana hal ogaadaan leh waa dad shilixsan dhinac way liitaan oo waa dareer tamaad dad bulshada waa taargad ka dhigata oo waxba ma haystaan haday shaqaysan kama dhex shaqaysan karaan ciyaal xitaa wax ma baran karaan waxay noqdaan waxay ku jiraan xabsi korka ka furan dadkaas weli ma aragtay intaad dadaalkan wadeen cid idin caawisa ama dareentay in dadkan ay u baahan yihiin in la garab istaago way jiraan daladaha ma badna dalada Puntland way jirtaa dalad Puntland ka shaqaysa laakiin ma badna Khadiijo nolosha kale in dadkaas ay nolosha wadaagaan oo iyagu wada noolaadaan baltaasi sidee bay ka dhigantaa way fiican tahay waxaan arkaa mataqaanaa wiil positive haduu yimaado uu yiraahdo xasmali waxaan ka fikiraa wiilkaasi waayo intaan u baahan oo kale u baahan yahay inuu reer dhaqdo inuu wax dhalo inuu shaqaysto noloshiisa caadi u noqoto waxaan u keenaa qof dhigiisa oo yadna gabadha baan u keenaa dhowr reer baan isku dhisnay sida aniga saygayga Bashiir reer badan baan isku dhisnay imika ilaa 8 gaadhaya reeraha waxaan ku kaftamaa waa reerkaygii meesha kastaan tago oo ka casuumanay magaalo kastaan tago magaalooyinka Soomaalida degto dhan ilaa mustaxiil reeraan ku leeyahay gabdhaha iyo wiilashaydii baa jooga garabkana waxaan ka helay odagayga Bashiir maadaama isagu moraal haya ana xanuunka anu dumar baan ahay waxaan ugu dadka ugu nuglaaday ay dadku i caydsadeen laakiin isagu rag weyn rag dumarka way ka adkaysi badan yihiin midalaad wuxuu igaga fiicnaa dadkooga baa barbar taagnaa oo la saag istaagay aniga laakiin waa la kala cararay hooyada wax saag istaagtay hooyadayna anoo yar bay iga dhimatay maadaama sidii waxaan ka fikiray inantayda sidii aniga ku dhacday inayna maanta gabadheeda ku dhicin gabadha sanadka 15aad bay ku jirtaa waan la sheekaystay waan la saaxiibaa hatta xanuunka yahay waan u sheegay marka eed soo gaadhan u sheegay oo igu tirooy iskuul lacag badan igee waxaan ku rooy kuma awoodo aabaha saasaan ugu kala dhacday waan kala tagnay waxaan ana ku sabad gareeya hooyo iskuulkaasaan ku awoodaa saasaan u xanuunsanahay noloshaada intaasaan ku awoodi karaa iskuulkii aan ka soo baxay waa kana dhigo hadda fontri way sanadkan ku guuleystay way ogtahay in xanuunka hadda guriga ay joogtaa waxay inta ku dhiirataa in shaqaale caafimaad noqoto dumarku sidee ugu nugul yihiin dhibaatooyinkaasi marka waxay ugu nugul yihiin inta badan inta burburku dhacay horta sidaad ogtahayba nolosha waxay ku xeeran tahay dumarka ma ogtahay dumarkii hooyadii ninku hadduu xanuunka ku dhacay bayada iskaga taato aan laga garanayn buu taga laakiin hooyadu waxan bay ku fadhidaa uwaday ku fadhidaa ma ogtahay kaba tagi karto ubadkayga dib u eegaysaa dhibaatadii oo dhan way saarantay bulshadiina waa taargad bay ka dhiganaysaa toosh baa la daba sitaa ugu dambeyn fariinta aad diraysa maxay tahay fariinta aan diraya waxa weeyaan mid waa mid dadka ayaga masaakiinta positive ka la nabadgeliyo waayo iyaguna waxay ku kacayaan tacadiye kale mid labaad waxaan kala fariinta aan diraya waxa weeye waxyaabaha dhaqanka inkastoo soo yaraado sida hore ahayn waxyaabaha dhaqanka gudniin wadareedka iyo waxa cunaha carruurta laga jira hal meel aroortii lagu soo ururiyay waxyaabaha laga tago dhaqamada noocaasa hal ogaada xanuunkan inuu saa ku faafayo sanad walba shalay oo kale kooda bisha December waxaa dunida laga xusaa maalinta cudurka HIV/AIDS-ka daraasad la sameeyay 2018 waxaa lagu sheegay in cudurkan dadka la nool dunida ay gaarayaan 37,000 oo qof inkastoo cudurkan uu dilaayahay haddii aan la tacaalin daawadiisana aan la qaadan haddana dadka Soomaalida ayaa khalad ka fahansan heerka khatarta cudurkan iyo qaabka uu ku faafo dadka la nool cudurka HIV/AIDS-ka ayaa hab dhaqan aan wanaagsaneyn kala kulma bulshada taas oo sababta in qofkii lagu sheego cudurkan uu qariyo kana xishoodo inuu tago goobaha laga helo daawada cudurkan
fadlan haddii aad ku cusub tahay boggeena Raad Production subscribe saar si aad mar walba ula socotid muuqaaladeena cusub